gabadhaas oo hadda nadiirus macnaha gabar dad afar iyo 10 wiil iyo 8 gabadhood baa iga maqan oo ay ku jirto gabadh ay ku jirto hooyadana inay burcad tagantaa lii sheegay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaan ka shaqeynaa aniga nin sargaal baan ahay haddana gobolka Gedo ayaan aniga naag reer dalal ma guursanin waxaan guursaday naag isaaq ah oo ciid gala ah waxa weeye gabadhaas nadiiro waan ku qaldamay 14 boqolka quraanka kariimka ayaa iga raalaadeen intii familka oo dhan gabadhaas taala barakaatu aad baa idin salaamay asxaabtayda qaaliga sheegtadu way badatay mar la dhaho nadiirana la qabiil oo dad aan la qabiil ahayn maray dhahan aabaheed baan ahay odayga 9 jirka xikmad intay soo dhamaatay anigu soo dhamaatay kulaha nadiira aabaheed baan ahay waan baafinaya halii geeyo marka asxaabtayda qaaliga ay soo diris waxaan u sheegay ana aabahay alxamdulillah meeshii loo baahnaa uu jira oo la wada sugayso aabahay wuu dhintay aabahayna maxamed cigaal la dhahaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo odaygan weyn 9 jirka lacagta inta soo siisa ku qaraabanaysid intaad iska deysid adigu magac raadso walaal wiilo khayr allah ku siiye curudkiin wuxuu sheegay yaraantii oo taadee bismillah aan yaraana reerka dhan baana u yaray kala dhan soo sheegan waay markuu aan soo sheegana wiilasheena dhan inta ku ilooba wallahi Soomaalidu way halaado mar qof qabiilkiisa la iska sheegto oo san ahayn qofna wuxuu iska soo jira nadiiran ku qabiil oo aniga dadkeena waaba qof aanan kani waa aabba Soomaaliyeed oo run ahaantii umaamadii ay ka dhacday dhiiqana lagu haloo galiyay muuqaalu hore u soo day wuxuu aabahan ku sheegay inuu dhalay fanaanada caanka Nadiir Nayrus waxaana muuqaalkaas oo daqiiqado fara badan soconay ku sheegay inuu dhalay fanaanadan kuna soo bandhigay xogo fara badan oo lagu rumaysan karo aabahan waa yeelkay 70 jirka ah kuna nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay inuu dhalay fanaanada caanka Nadiir Nayrus isla markaasna uu yahay aabaha saxda ah sidoo kale wuxuu sheegay magaca rasmiga ee Nadiir inuu yahay Aamina wuxuu sidoo kale soo bandhigay xogo fara badan oo bulshada Soomaaliyeed run ahaantii 99% ay warkiisa ku rumaysteen waxaana kamid ahaa inuu mar xiriir la sameeyay Ciidid Jawhar oo ah ninka qaban Nadiir Nayrus isla markaana uu sheegay inuu yahay aabaha Nadiir ayna ka wada hadleen sidii ay u kulmi lahaayeen isla markaana ay isku xiriirin lahaayeen sidoo kale aabahan wuxuu sheegay in Ciidid uu la soo xiriiri jiray isla markaasna dhowr mar lacag u soo diray halkaas markii arinta marayso waxa uu sheegay haddana in Nadiir Nayrus xilliga ay joogtay magaalada Hargeysa waa sanadkii 2020 bilowgiisii ay xiriirin jirtay isla markaana dhowr mar ay soo wacday laakiin aabahan Soomaaliyeed ayaa run ahaantii dhiiqa lagu halagalay fanaanada Nadiir Nayrus ayaa markii ay aragtay muuqaalkan waxay si degdeg uga soo jawaabtay muuqaalkaasi waxaana ay soo duubtay clip yar oo ay kaga hadlayso aabahan iyo sheegashadiisa uu sheegtay inuu dhalay asaga waxaana sheegtay in warkan uu yahay mid been abuur ah laguna doonayo in lagu samc dilo ayada isla markaasna ay shakhsiyaad ka dambeeyaan waxayna sheegtay in odaygan la soo siiyay lacag hasaatee aabahan Soomaaliyeed ayaa run ahaantii muuqaalkii uu soo duubay bulshada Soomaaliyeed 99% way rumaysteen oo waxay u qaateen inuu yahay aabaha saxda ah ee dhalay fanaanada caanka Nadiir Nayrus hasaatee muuqaal kale oo dib ka soo duubay aabahan ayaa wuxuu ku sheegay in uu ku khaldamay Nadiir Nayrus isla markaasna ay ka maqan yihiin in ka badan 13 cunug carruurtaas ayuu ku sheegay aabahan inuu ku waayay burburkii isla markaasna uu meel uu ka xiriiriyo hooyooyinkii dhalay uu waayay sidaasna ay ku dhacday in ay kala irdhoowaan carruurtaas iyo hasaatee arintan ayaa isla markiiba waxa la ogaaday inay ka dambeeyaan shakhsiyaad caanka ah baraha bulshada isla markaana Nadiira la dagaalsan ugu dambeyntii odaygan waa la soo qabtay oo waxa la ogaaday sheegashada uu sheegtay in Nadiir Nayrus asaga dhalay ay been ahayd isla markaana lacag lagu siiyay si uu bulshada Soomaaliyeed u maran habaabiyo ugana dhigo Nadiir Nayrus qof xun oo waalidkeeda ay dayaceen isla markaana culimo oo kale lagu soo koriyay asahaatee arintaas uu suurtuubi weysay oo haatan Nadiiro aabaheed waa la yaqaanaa asaga ayaa ceebaysan oo maanta lagu hadhiiqa la galay odaygan Soomaaliyeed ahaantii wuxuu u muuqdaa oday maskaxda looga jiro maadaama wuxuu rabo iskaga hadlayo ugooraan waxaa la rabay haddii uu arintan xataa uu fadeexad uu ka rabay in uu sameeyo in arintan maalmaha hore uu ka aamusay kadibna ugooraan uu gadaal uu ka raali geliyo isla markaana uu sheegay bulshada Soomaaliyeed in uu arintaas qalad ku sameeyay laakiin isla maalintii uu soo duubay muuqaalka maalintii ku xigtay ayuu wuxuu leeyahay Nadiir waan ku khaldamay beentay bay ahayd ay garaan noqoto ayadii ehelkeeda way ay ku dhici kartaa sidaas adigii shalay lahaa Ciidid Jawhar bay soo wacay oo waan la hadlay oo dhowr mar lacag buu ii soo diray oo ayada naftirkeeda way soo xiriirin jirtay markii Hargeysa ay joogtay inta ay Hargeysa joogtayna way soo wici jirtay oo ila hadli jirtay adigii dhahay haddana dhahay waan ku khaldamay eraalahow warkaas wuxuu u muuqdaa war aan isaysan beentii ugu weyneedna
waxaad noqonaysaa qof sheegay maadaama adigii shalay lahaa way soo xiriirin jirtay haddana aad dhahayd meel ay joogto iyo meel kale weligii ma maqal magacaasna hadda ayaan maqlay oo ay saki cafiso raanta odaygan wuxuu muuqdaa oday lacag lasoo siiyey oo laaluush qaatay laguna bahdilayay fanaanada Nadiir Nayrus si sumcadeeda loogu ciyaaro ugu dambeyntii Nadiir way guuleysatay odaygana dhiiqa ayaa lagu haloo geliyay haddaba daawadayaal dadku cusubtiin channelkan fadlan subscribe saara muuqaalkana la gareey sina share gareey asxaabtiin la wadaaga si aad u noqoto mar walba daawadaha kuwaad mar walba hela muuqaalada iyo xogahan bartan soo gelin mahadsanidin asahaatee arrintan ayaa isla markiiba waxaa la ogaaday inay ka dambeeyaan shakhsiyaad caanka ah baraha bulshada isla markaana Nadiira la dagaalsan ugu dambeyntii odaygan waa la soo qabtay oo waxaa la ogaaday sheegashada uu sheegtay in Nadiir Nayrus asaga dhalay ay been ahayd isla markaana lacag lagu siiyay si uu bulshada Soomaaliyeed u maran habaabiyo ugana dhigo Nadiir Nayrus qof xun oo waalidkeeda ay dayaceen isla markaana culimo oo kale lagu soo koriyay asahaatee arrintaas uu u suurtuubi weysay oo haatan Nadiiro aabaheed waa la yaqaanaa asaga ayaa ceebeysan oo maanta lugaha dhiiqa la galay odaygan Soomaali run ahaantii wuxuu u muuqdaa oday maskaxda looga jiro maadaama wuxuu rabo iskaga hadlayo ugu horreyn waxaa la rabay haddii uu arrintan xataa uu fadeexad uu ka rabay in uu sameeyo in arrintan maalmaha hore uu ka aamusay kadibna ugu horreyn uu gadaal u ka raaligeliyo isla markaana uu sheego bulshada Soomaaliyeed in uu arrintaas qalad ku sameeyay laakiin isla maalintii uu soo duubay muuqaalka maalintii ku xigtay ayuu wuxuu leeyahay Nadiir waan ku khaldamay beentay bay ahayd ay garaan noqoto ayadii ehelkeedaba way ay ku dhici kartaa sidaas adigii shalay lahaa Aydin Johor bay soo wacay oo waan la hadlay oo dhowr mar lacag buu ii soo diray oo ayada naftirkeeda way soo xiriirin jirtay markii Hargeysa ay joogtay inta ay Hargeysa joogtayna way soo wici jirtay oo ila hadli jirtay adigii dhahay haddana aad dhahdid waan ku khaldamay eraalahow warkaas wuxuu u muuqdaa war aan isaysan beentii ugu weyneedna waxaad noqonaysaa qof sheegay maadaama adigii shalay lahaa way soo xiriirin jirtay haddana aad dhahayd meel ay joogto iyo meel kale weligii ma maqal magacaasna hadda ayaan maqlay oo ay saki cafiso raanta odaygan wuxuu muuqdaa oday lacag lasoo siiyey oo laaluush qaatay laguna bahdilayay fanaanada Nadiir Nayrus si sumcadeeda loogu ciyaaro ugu dambeyntii Nadiir way guuleysatay odaygana dhiiqa ayaa lagu haloo geliyay haddaba daawadayaal dadku cusubtiin channelkan fadlan subscribe saara muuqaalkana la gareey sina share gareey asxaabtiin la wadaaga si aad u noqoto mar walba daawadaha kuwaad mar walba hela muuqaalada iyo xogahan bartan asahaatee arrintan ayaa isla markiiba waxaa la ogaaday inay ka dambeeyaan shakhsiyaad caanka ah baraha bulshada isla markaana Nadiira la dagaalsan ugu dambeyntii odaygan waa la soo qabtay oo waxaa la ogaaday sheegashada uu sheegtay in Nadiir Nayrus asaga dhalay ay been ahayd isla markaana lacag lagu siiyay si uu bulshada Soomaaliyeed u maran habaabiyo ugana dhigo Nadiir Nayrus qof xun oo waalidkeeda ay dayaceen isla markaana culimo oo kale lagu soo koriyay asahaatee arrintaas uu u suurtuubi weysay oo haatan Nadiiro aabaheed waa la yaqaanaa asaga ayaa ceebeysan oo maanta lugaha dhiiqa la galay odaygan Soomaali run ahaantii wuxuu u muuqdaa oday maskaxda looga jiro maadaama wuxuu rabo iskaga hadlayo ugu horreyn waxaa la rabay haddii uu arrintan xataa uu fadeexad uu ka rabay in uu sameeyo in arrintan maalmaha hore uu ka aamusay kadibna ugu horreyn uu gadaal u ka